aroornimadii hore ee saakay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada Bulaburde ururka 41aad guutada 5aad qaybta 27aad ururka 52aad guutada 4aad qaybta 27aad ciidanka deegaanka ee Macawisleyda maamulka degmada Jallaqsi ayaana howlgal waxa ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo simaada degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan deegaanada ay ciidamada howlgalku ay ka sameeyeen waxa kamid ah Dabayood leh Galgubad leh Hilabanaan Jicibow halkaas oo ay ciidanka ay ka soo jareen doon ay farxadka al-shabaab ay ka gudbisan jireen ciidamada ayaana dhowr sabanba ku dhuftay doonta taasi oo quustay webiga howlgalka inta uu socday hayna ciidamada iyo nabadiidka al-shabaab iska hor imaadeen dagaal saacado kooban dhaxmaray kaas oo al-shabaab ay isaga careen deegaanadaasi taliyaha ururka 41aad guutada 5aad qaybta 27aad Maxamed Muumin Cilmi iyo gudoomiye Jaliil Ciise Foodey oo warbaahinta la hadlaya waxay wacad ku mareen in uu socon doono dagaalka lagu cirib tirayo al-shabaab ee looga sifeynayo deegaanada hoos yimaada degmada Bulaburde harba umada Soomaaliyeed inuu sheego ma jiro shabaab maanta idila dagaalamo halaga kaca fadhiga cadawgana hal iska celiyo anikana waa idiga horeyna hadii Ilaahay idmo waxaan u dhaaranay waajibaadkan u dhaarano qaranaan fulinayna waana u dhimanayna waana u dhaawacmayna kee ku dhintaan ugu qayr badan anikoo doonayna inaan waxa waaye ku shahiidno ayaan rabnaa inaan dalka ka nadi maanta waxaan gaarnay meelo talisyo u ahaaday waa arkaysiin calankii shabaab calanka saas u dhamaaday sida u dhamaaday ay kana u dhamaadeen ay ku xiranayeen meelo bara control iyo saldhigu ah waxaan maanta gaarnay Dabayood leh Galgubad leh Hilabanaan Hilaweyn Jicibow oo ay doon qaasa ay iskaga gooshaan dhammaan haday koonfurta Soomaaliya rabaan iyo hadii bari iyo waqooyiga Soomaaliya ay rabaan bay iskaga gooshaan ayaan maanta ka soo burburinay Ilaahay baa ku mahadsan shabaab waxa gaaray jab weyn oo runtii la dhihi karo waa mid ay ku halaagmeen ma jiro 20 daqiiqo 10 daqiiqo ciidanka ay ishaayeen mar walbaba way si cararayeen shabaab waxaad sheeganaysaa waa diin waxaad cadeysay markaad 3 jir iyo 2 jir iyo hooyo irmaan oo umula markaad uur dooxday ayaad sheegtay inaadan diinahayn kuwa umiyiinta gaalada waxa ugu liita kuwa umiyiinta oo bilaadiinta ah kuwaasuna ma sameeyaan waxaas iska day kuwa nasaarada iyo yahuudda iska daayay umiyiintu ma sameeyaan waxaad sameeyeen waxaadna sheeganaysaan inaad diin haysataan oo aad ku dagaalamaysaan diin oo aad dadka kula dagaalaysaan diin oo aad u sheegi jirtaan umada diin taasu been bay noqotay markaad 3 jir iyo hooyo umula oo birmageyda oo kuwii Ilaahay maaragtay ii sheeg oo dambi dushooda una saarin markaad disheen kuwa kale oo Ilaahay soonkii ka qafiifiyo oo salaadii ka qafiifiyo oo masaafurka markaad laydeen oo meel ku xirteen ayaa inaad bilaadiintihiin sheegteen sida darteed waxaan u cadeynayaa marka umada Soomaaliyeed shakhsi kasto gaar ahaan kuwa Hiiraan kasi kale kuwa Bulaburde inaad u istaagtaan sidaad uga xuray lahaadaan degmooyinka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin afar iyo laba meel walba u taagan yihiin war iska dulqaada dulliga waa dulli aanan diin haysan waxay sheeganayaan waa been Ilaahay bay inuu uga fogaadeen Askari Ali Raage warbaahinta qaranka degmada Bulaburde